labadii toddobaad ee lasoo dhaafay xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaa la isku sameeyay isku shaandhayn wasiirada qaar baa intii laga qaaday booskoodii la geeyay boos kale. wasiirkii warfaafinta waxaa loo bedelay nabadgelyada, wasiirkii xoolaha waxaa loo bedelay waxbarashada, wasiirkii hawlaha guud waxaa loo bedelay cadaaladda, sidoo kale wasiirkii adeega shacabka waxaa loo bedelay warfaafinta. dabcan wasiirro cusub oo la keenay way jiraan uu ka mid yahay Axmed Shukri oo badanka ahaa shaqsi bulshada oo riyaaqda markii la keenay dhalinyar badanna u kacday lana aaminsan yahay inuu isbedel ku samayn doono. Axmed Shukri ayaa la sheegay digrigiisa labaad mastertiisu in ay tahay horumarinta magaalooyinka waana xafiiska isaga la geeyay oo dabcan waxaan aaminsanahay inuu isbedel ka samayn karo. sidoo kale hogaamiyihii nabadgelyada hore Dayib Axmed ayaa isna loo bedelay wasiirka maaliyadda talow nin amni ka shaqayn jiray maaliyad ma ka shaqayn karaa. haddaba bulshadu maalin ugu dambeysay wax badan baa ka jiray baraha bulshada oo dadka qaar waxbay ku soo qorayeen waxaan la soo qoray isbedel baa rabnaa. hadda waxaad moodaan la yar aamusay isbedelkii bulshadu ku qanacday mise qanacala daraa weli jirta. waxaa jirtay maalin dhaweyd warbixin lagu qoray The Reporter oo sheegaysay in biyo nadiif ah ay deegaanku helin sidoo kale biyo ku filan ayna helin. xukuumaddu taa waa ay ka jawaabtay oo shaqsigii joogay wasiirkii halkaa joogay waa la bedelay. talow isbedelka intaa ku filan tahay bulshada mise weli waxaa jira waxyaabo kale ay tuumayaan oo doonayaan isbedel dhaba laga dhalo. bulshadu waa ay kacday oo kicitaankoodii iyo baraha bulshada wax lagu qorayay iyo talooyinka xukuumadda la siinayay waxay dhalisay isbedel balse aaway xisbiyadii mucaaradku aaway nalef aaway fed iyo xisbiyada la midka ahaa. xisbiyada deegaanka Soomaalidu waxay kaliya u qoondaysan yihiin in kootada ay ku leeyihiin dowladda federaalka ay qaataan oo kaliya mise waxay rabaan inay isbedel sameeyaan oo ay la tartamaan xisbiga talada haya barwaaqo. bise rajadu waxay noqotay maadaama xisbigan uu guul leeyahay oo laatan iyo dowladda federaalka salka ku hayo lana dhaho xisbigan oo barwaaqo la dhaho ka jira Itoobiya oo idin waxaad isleedihiin waxba kama qaadi kartaan oo xisbigan Abiy Ahmed buu salka ku sii haya. su-aashaas jawaabteedu waxay u taallaa xisbiyada mucaaradka. su-aashii hore aan dhigana waxay u taallaa bulshada rayidka. والسلام عليكم وأنا نعمان عبد القادر.